hooyadiis waxay ku tiri wiilkeygiyow maasha allah ilaahay waa ku fataxu kuu furay shaqo fiicanuu ku siiyey waa shaqaysataa guurso wuxuu yidhi hooyo waa guursanaya laakiin waxaan guursanaa yidhi mustawaa yani waxaa waaye qof aniga ila siman yacni taajirna ahayn faqrina ahayn yacni levelka aan taagana inaan guursado saysan beri haddii taajir tahayna ay dhihin yacni haddii faqriyaa tahay haddii faqri tahayna aysan yacni labada kalbo ay waxba iga sheegin qof ila mid ah aniga heerka aan taaganahay quutliyoonkooda reerkooda raasadaan keensado cuno cabo alxamdulilah waxba ka maqneen inaan guursado laakiin gabar dhaqaalaysan sa adigu tilmaamaysa hooyo aniga diyaar uma ihi gabadhii nafsu shay asaga raadinayay levelkiisa ah ayaa ilaahay u sahlay markuu gabadhii guursaday ilaahay fataxa oo usii furay oo allah usii bulaaliyey maxaa yeelay waxay ugu noqotay maxaa la dhihi jiray فرتونو يعني قف وحي نقطي ما شاء الله تبارك الله وإلهي دخالا إنه أبضي معن ويرين الحمد لله شكر رب العالمين كذب ريركاس محا بربري وبربري محوك بربري بالقصة بالله بالله رماد إن شاء الله عندك السنة نكايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta qiso waxay wadaa qiso walba cibro qaashay leedahay qiso walba in lagu camal fasho baahanta qiso walba waxay u baahan tahay in yacni laga qaato cashar laga qaato qisooyinka runtii markay sax u dhacayaan waxay u baahan yihiin in laga cashar qaato qisadaas oo kale markaa maqashid waxa waaye cashar qaashay ku tahay waxa waaye qisadaas kale mar kale hadday dhacda waxaa leedahay subxaan allah qisaan qiso lamid hadda kale maqlaayid waa sax marka qisadan waxay ima tahay yani wiilkan waa wiil dhalinyaro ah oo asagaba noloshiisii jeclaa inuu waxbarto waxbarashiis dhammaysto laakiin duruuftii u diiday aabiis yiri wiilkeyga waa weynaatay adiga inaa ila shaqaysto reerka ila qabatid sidii wuxuu noqday nin shaqaynayo laakiin weligiis wuxuu jeclaay inuu asaga lahaado asaga nolol asaga u qaas yani asaga shaqo suuqa sidii gaari oo kaleeto dareefalnimo jeclaay gaari oo kale gaariyada barsado 2 gaari 3 gaari u dhigto الحمد لله قاري وكواد مركو سوقات شركة العقتي وكيس كسينا الحمد لله هو يسوي حيت المركة قرصو ويركيو كاسو حيلو حروا هوي كبر أنيقا إلى الله يفرقي إنا قرص دارما كبر أيت المامتي وقال ريركود العقيل لين أنيقا أضو فقر إبري إما ناس الحمد لله كبر دي أو ليفر كيسسو أساقا شيء أيوها لي كبر دي الحمد لله كبر مركو أركودي بأسو جعلادي وحيل كبر داس أيان جعلادي أركودي ليفلين إلا تهوير إيدا أباهنا sidii gabadha loogu doonay wuu guursaday markuu ilaahay uu guursaday ayay waxay bilaaday gabadhii alxamdulilah shukr bil caalamiin wajigeedii guriga kula soo gashay waxay u noqotay maxaa la dhihi jiray soomaali beexaaw fartuunaato adiga in noloshii usii weynaato baawarka midoo ahay 2 u noqotay 2 3 u noqotay alxamdulilah wixii u bulaaleen alxamdulilah markay u bulaaleen gabadha markay wax u weydiisato way siisaa gabadha marka waxay la tashataa hooyadeed hooyada u tagtay waxay tiri hooyooy ninkeygii uu sii taajiro noqonaya waxaana ka cabsanaya tiri inuu ila guursado waxay tiri soo kula guursanin talaan ku siina waa hooyadeed talada ay siinaysa maxay tahay waxay tiri horta habeen iyo maalin sanad walbay tiri u dhal horta ilmaha guriga ka bataano meel uu kala geeyaa waa ilmaha leh ku mashquulay كو طلبات كانوا حيتري مالو بحات هذا يتري كان لو باهي كيل لو باهي فديغا بدله بلو لو باهي كان اديغا مان والبو سو تاغنو كبدي waxay soo qaatay 10 hooyad maalba sidii sameeysa lacag ka qaata dahabi soo gataa halkaan ku shubtaa qasnadii soo gadato way ku arursaa lacag ka qaata adiga ma u diido wiilkan wuxuu isiree adiga wajigaaga quruxda badan leh alxamdulillah nasiibkaaga wanaaga badan leh ayaa ilaahay igu siiya sidii sidoo ahaad ayaa waxa dhacday baawartiis mid kamid ah ayaa shil galay jajabay wiilkii wadani wuxuu galay koomo wiilka reerkiisa lacag ka rabaa shirkadii lacagtii ka rabtaa adiga wixii jaam isku noqdeen baawartii asqunti marka marmara waxa la galaa kunkush waxa la lahaa sicirkii hoos u dhacay yani qasaaro galay qasaaradii waxay noqotay hal baawur halka baawur waxay danta ku qasabtay inuu asagana gado inuu noloshii lagu lahaay ku kala dabaro markuu ku kala dalbaray ayaa waxa lagu soo lahaaday bangi lacagta tuu ka keenay marka lacagta dalkeen guriga gadow uu yimid xaaskiisii wuxuu yiri
gurigeena in la gaday naqanaysaa isaa u badbaadsan ilmo badana noo joog allah noo dhaafo walaalay dahabkaagii shalay ilaahay baa keenay oo lacagtan ku siiyo waa ku gadatay birina insha allah ilaaha keenaye bal dahabkaagii maanta iyo amaahayo gacanta iga saar saan noloshan ku kala dabero biri insha allah haddana sidiisi ka daran qisnada iyo mid ka badanba anaa kusoo buuxina waxay tiri waa kasoo fikiraa way baxda hooyadeedii aad waxay tiri hooyoy saasuu yiri odagay naag uu kusoo guursa rabaa tiri naag uu kula guursa rabaa xoolahan dahabkan tirada ka badan oo arkay maya dheh way u timid waxay tiri igala hal noqo xaajiyo dahabkayga ma ku sii karo shalay wuxuu yiri anigaa keenay oo lacagtan ku keena ku gadatay birina anaa keenaa walaalay nolosha waa ku cariirsantahay ilmaha meelaan geenayn ma lahan adduunka cagabud noogu noqonahay keen maya guriguuna soo fadhiistay waa diitay maalinta dambe yani say u horfadhiday yani qofka meel aada male shaqo mahay bangi waa ku dhagan yahay maalin dambe waxay tiri maxaa ii horfadhidaa ka baxay tiri guriga soco adduunkaaga raaco keenne gurigaan wixii laga rabo lacagaan u baahana maxaan keenaa uu yidhi adaaba qasan dahab kuu buuxaa adaaba koomboyin dahab kuugu jiraane walaalay intaa ka keenaa lacagtaan keen aan ku kala dabiro sidii shalay ahayd ika fiican anaa ka dhigaa birin lacagtan aan kuu soo celinaa qaylay kala dul dhacda qayladii ninkan maalusoo qayladii adkeysanaya maanta buu maskaxdii fajirtay yani waa qarxay maskaxda muu adkeysan karto gurigun dhex fadhiyaa shaqo maaha waxay maanta dambe noqotay maskaxdii ee maanta dhaca burantay tuu xanaaqay gooro u gacan qaaday oo xaaskiisii dilay ilaa ay ka dhimato ilmaheediyo soo taagtaagan yani ciidkiyaa ka batay rafaadka maskaxdii caburan rafaadka haysto nolosha afarta berje looga dhagan yahay gurigii soo fariistay iyadoo qaylinayso wixii maskaxdiisa qaban waayey ayuu dilay qofkaa xoog badanaa maqli jiray hortaayo xanaaqaaye agtiis malmar maro adiga kabuu ka siiyo way dhimatay muxuu sameynaa marka ilmihii igu ogaan diriskii u kala ordeen diriskii waxaa loo waca boliiska markii la qabtay oo la geeyeen maxaa u dishay ma kala yirin wuxuu yiri maskaxdii iyo caburantay dil isma dheheenno dheh anigu waa ku xumooy ilmihii inaan agoon maanta rajo ka dhigo oon hooyo la-aan ka dhigo ani xataa ma rabino dheh laakiin dantiyaa sistir maxaa yeele maskaxdeeda way caburantay iyadana qayladii iga badisay afar saac la hortaaganta saas darteed anigoo dili marji ku qabtay eejiyey dhimatay leeb arku yar gacantiisa ku dhimatay subxaan allah sidii reerkii waxay ku noqdeen adoo la-aan hooyo la-aan aabba la-aan aabihii xabsiga waxaa u dambeyn doonaa hooyadii gacantii ku dhimatay ilmihii rajay noqdeen waa taladay soo siisay hooyadeed kolay tala fiican masina maxaa inaan rabin nafta inay tiraahdo khayr allah siiyee hooyaa tahay inay tiraahday ahayd asna shala kuu gaday birina asaa kuu gadaya bal noloshaan guriga canka badan haluu ka dabaree maadaama dahabkaagii uu arkay ninkan ileen waa u jeedaa waa argay waxaan asaan ku siiyey ilaahay baa keenay birin ilaahay keenaan lagu ciisay ahayd waxaan dhamma dhici lahayd laakiin tala waxay soo siisay waxay tiri meel kale aftiimisay meesha kale aftiimisay ee daba gashay iyadana minka isku minka haba cusub qaylay ku darta ninkan maskaxdiisa caburnay nabaday subxaan allah yaa nankash wallaahi waa dhibkeeda leeda subxaan allah weli qadiyadaas waxaa lagu leeyahay way socotaa oo weli ma aysan dhammaan maxaa yeelay ninkan noloshiisa meeshuu si dambeys xataa weli ma la sheegin laakiin waxaa waaye waa qiso cibro qaadasho waxaan idin lahay gabdhow haddii taasoo kale kusoo marto koley haddaa xoolahaaga diiday xataa dahabka ilaa adaa iska leh koley qaylaha gudarin haddii asaga guriga soo fadhiista xataa kastoo aadi firaaqay adiga banaanka iska aad walba laakiin qaylaha gudara haddaa tiraahdo waxaa waaye ninkaa xoog badan waxaa la hortaa waxaan aqaa gacantiisa ku dhimanaya waa sheekada qisada maanta intaas ku ogtaa insha allah qisadan qisa lamid ah waxaa idin leeyahay khayr badan caafimaad bash barwaaqo subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta insha allah naga hilmaamina waxaa idinkaga tegaa caafimaad cimri dheer gambaleelka furo saad u heshid qiso walbo insha allah soo geliyo waxaan idin leeyahay nabad iyo khayr iyo caafimaad iyagu noolaad insha allah asalaamu calaykum